sheeko xariira maanta waxa aynu sheeko gaaban kaga sheekayn doonaa nin boqor ah ayaa waxa uu iclaamiyey oo uu shacabkiisa u sheegay in qof waliba uu been soo samaysto kadibna uu boqorka ula yimaado beentiisa. Qofkii uu boqorku ku yidhaahdo waa beentaa waxa uu hantii doonaa kala badh boqortooyadiisa. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin adhi jir ah isku dayay inuu boqorka ula yimaado arrin been ah. Ninkani waxa uu boqorka ku yidhi, aabbahay waxa uu lahaan jiray ul dheer oo uu habeenkii xidigaha ku kala leexin jiray. Boqorkii ayaa ku yidhi, waa runtaa, aabbaha waxa ay saaxiib ahaayeen awowgay oo marka uu damco in uu sigaar cabo cadeedda ayuu ka shidan jiray. Ninkii adhi jirka ahaa uu ku guuldaraystay inuu boqorka kaga yeedhsiiyo waa beenta, kadibna wuu iska tegey. Maalintii ku xigtay ayaa boqorka waxa u yimid nin dhartolo ah. Waxa uu ku yidhi boqorka, raalli ahow boqorow, waxa aan ku habsaamay duufaan xalay dilaacay ayaan tolayay. Boqorkii waxa uu ku yidhi, waad fiican tahay oo shaqo fiican baad qabatay, laakiin iyada oo qabyo ah ayaad ka timid oo duufaantii xalay dilaacday ayaa ilaa saakana soo gaadhaysay. Markanna boqorkii ayaa guulaystay, ninkii dhartolaha ahaana wuu iska tegey. Maalintii dambe waxa boqorka u yimid nin foosto wata. Ninkani waxa uu boqorka ku yidhi, boqorow, waxaan kaa soo doontay foostadii dahabka ahayd ee aan ku amaahiyey. Boqorkiina waxa uu ku yidhi, waa beenta, wax aad i amaahisay ma jiraan. Ninkii ayaa ku yidhi boqorkii, haddii ay tahay beentay, taa macnaheedu waxa weeye in aan kaaga yeedhsiiyey waa beentaa. Sidaa darteedna waxaan xaq u leeyahay iminka qayb ka mid ah boqortooyadaada, sidii aad adigu ballan qaaday. Boqorkii ayaa isku naxay, hadalkiisii ahaa been baad sheegaysaana wuu ka noqday. Waxa uuna ku yidhi, waa runtaa oo dahab ayaad i amaahisay. Ninkii ayaa yidhi, haddaba isii foostadii dahabka ahayd. Boqorkii ayaa siiyey foosto dahab ah isaga oo u baqaya boqortooyadiisa. Arrinkiina halkaas ayuu ku soo xidhay markii uu ogaaday in laga guulaysan karo.